waxaynu ku bilaabaynaa Iiraan ayaa wafdi kooban waxay u dirtay dalalka Pakistan, Oman iyo waliba magaalada Moscow. haddaba wafdigan waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ninka la yiraahdo Abbas Araghchi. safarkoodu waxay ka bilaabeen maanta magaalada Islamabad. haddana laba war oo isbarbar socda ayay warar ku kala tabinayaan. warar dhanka Iiraan waxay sheegayaan Araghchi inaanu la kulmi doonin wafdigada Mareykanka ee halkaa ku sugan. weli Islamabad waxaa ku sugan koox farsamo oo ka tirsan Mareykanka oo wada hadalladii hore halkaa u tagay oo weli jooga, marka waxay leeyihiin kooxdaas lama kulmi doono. dhanka kale warbaahinta Pakistan waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa Abbas Araghchi wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan inay qolada Mareykanka ay meesha joogta ay is arkaan waa suuragal. marka labada warba way socdaan. marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay waxaa leeyahay Araghchi wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayay maanta u bilaabatay socdaal uu ku tagayo Islamabad iyo Masqat iyo Moscow. wakaaladda wararka ee Iiraan waxay sheegtay wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi in maanta uu socdaal ku tagay Islamabad isagoo u sii gudbi doona caasimadda Oman ee Masqat iyo caasimadda Ruushka ee Moscow. wakaaladdu waxay sheegtay in safarkaasi uu markaa kala hadli doono mas'uuliyiinta uu la kulmi doono dowladahaas arrimo muhiima oo ku saabsan dagaalka ay Iiraan ku jirto. wariyaha telefishinka Al Jazeera wuxuu sheegayaa isagoo soo xiganaya warbixin dhinaca xukuumadda Pakistan in Araghchi uu la kulmi doono sida la leeyahay ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif, iyadoo sidoo kale kulanka uu goobjoog ka noqon doono taliyaha ciidamada ninka la yiraahdo Qasim Munir, waxaana uu ka dhici doonaa caasimadda Islamabad. marka waa safarkii ugu horeeyay wasiiru khaarijiyaha Iiraan tan iyo markii dagaalka uu joogsaday uu maaragtay meelo badan ku soo maro. Islamabad waa markii labaad uu tago. wada hadalkii hore wuxuu la socday gudoomiyaha baarlamaanka iyo wafdigii ballaarnaa ee Iiraan ee halkaa wada hadallada ku yeeshay. kadib wuxuu ku laabtay Iiraan. hadda marka wuxuu marayaa Islamabad, kadibna wuxuu u gudbayaa caasimadda Oman ee Masqat, kadibna wuxuu u gudbayaa caasimadda Ruushka ee Moscow, halkaasoo markaa la sheegay inay markaa wada xaajoodyo ay madaxda dalalkaasi ay la yeelan doonaan. haddaba marka wararkii ugu dambeeyay marka dhanka Hormuz ayaa warar cusub ay ka soo kordhayaan. waxaa leeyahay saacadihii la soo dhaafay ama 24 saac ee la soo dhaafay marin biyoodka Hormuz 5 markab ayaa ka gudubtay. 5 markab waxaa ku jiray markab weyn oo qaaba shidaalka 2 milyan oo fuusto shidaal ah markab wada oo Iiraan leedahay oo dekadaha Iiraan ka baxay ayaa halkaa gudbay. kadibna ciidankii Mareykanka lama hadlin, wuu iska socday. marka waxaa leeyahay meeshan Axmed su'aalaha taagan. dhanka kale markab Iiraan ay leedahayna Mareykanka way haystaan. markabkan shidaalka wadana meeshuu maraya. sidee marka wax u jiraan? marka dood fara badana marka arintaa ka taagan. dad badanaa laga waraystay waxay ka yiraahdeen waan idin hayaa. laakiin marka hore aan tuso telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa xaqiijisay 5 markab inay ka gudbeen marin biyoodka Hormuz 24 saac ee la soo dhaafay. haddaba wakaaladda wararka ee Reuters waxay leedahay bayaan aynu ka helnay ilo kala duwan waxay xaqiijinayaan 5 markab inay halkaa ka gudbeen oo mid uu yahay kuwa qaada shidaalka oo Iiraan ay leedahay inay halkaa ka gudbeen. sheekadan marka dad badan waxay gelisay wareer. Mareykanka wuxuu leeyahay Iiraan go'doominaya. haddana Iiraan dhaqaalaha xagee ka heshaa shidaalkii Iiraan wuu gudbayaa. sidee wax u jiraan? marka waxay yiraahdeen warbaahintii Mareykanka bal arrinkan waa xaqiijinaynaa. satellite-yada sawirro ay qaadeen ayaa la soo bandhigay inay arrinkanu been yahay iyo inuu run yahay.
haddaba markaan idin tuso wakaaladda wararka la yidhaahdo Bloomberg ee dalka Mareykanka laga leeyahay waxay xaqiijinaysaa Iiraan inay sii wado inay markaa rarto shidaalkeeda iyadoo go'doominta Mareykankuna ay saaran tahay dekedeeda waxaa laga rarayaa shidaalka satellite-ka sawiray shidaalkaas maraakiiba la saaraya wuu soconaya maxaa dhacay marka cunaqabatayntan baasu Mareykanka Iiraan aan ku hayaa adduunka u sheegaa maxay marka ninaa la weydiiyey waxaa la weydiiyey nin aqoonyahan oo Mustafa la yiraahdo oo Al Jazeera fadhiya oo isagu arrimaha badda iyo waxaan laga wareysto wuxuu sheegay way caddahay yiri waxaa jira Chinese-ka Mareykanka markii hore way u sheegeen waxay yiraahdeen shidaalka Iiraan annaga ayaa maal gashanay shirkadaheena lacag gashaday shidaalka Iiraan annaga qaadana adeero marka shidaalka ay soo hortaagi oo fiirsada shidaalkaas hay soo hortaagi hadaad nabad naga rabto hadii kale dagaalkii saddexaad la isku qaadqaadaya marka fariimahaas soo dhacayay wuxuu yiri iyo wararkan Mareykanka hadda ay xaqiijinayaan warbaahintooda waxay meel noo saaraysaa uu yiri maraakiibtan shidaalka ku raran ee Iiraan inay China iska leeyihiin China u socdaan Mareykanka aanu taaba karin laakiin Mareykanka wuxuu ku dhagan yahay markab kale haystaa markabkaas Iiraan waray ka soo saartay oo ka haysto Mareykanka waxay tiri markabkan uu haysto adawaad dibbiya saaran macnaha caafimaadka alaabooyin loo isticmaalo iyo daawooyin iyo qalab ayaa saaranba wax ganacsiyo ma ah waxaa marka ku jira xataa kaliyaha dadka xanuunsanaya kaliyaha ka fadhiyaan alaabooyinka iyo daawooyinka loogu dhaqo iyo qalabka la isticmaalo ayaa saaran dad masaakiin oo caafimaad oo isbitaal ah waxa kan loo wadaa ee way ugu dhagan yahay shidaalkiina waa maraa lacagta ay keenaysa Iiraan alaabtii daawada iyo waxaan adduunka la isku soo sawiraa maraakiiba ka qabtay aalay macallinka way wax ka xariifsan male Chinese-ka alaabtiisa ma taabanayo waa tan adduunku ka shakisan yahay oo warbaahintiisu satellite-da ka sawirayaan Iiraan maxaa la go'doomiyay shidaalkeeda waa wararanaysaa marka warku dhan marka meeshu taagay marka ay tuso Iiraan warkii ugu dambeeyay ay ka soo saartay markabka laga haysto haddaba marka waxa leeyahay Iiraan waxay ku eedaysay Mareykanka inuu haysto markab ay ku raran tahay alaabooyin dhinaca caafimaadka ah haddaba qaramada midoobay ergada u joogta Iiraan ayaa waxay soo gudbiyeen warbixin ay leeyihiin in markab Iiraan leedahay oo la yiraahdo Tooska kaasoo la qabtay 19 bishan aynu ku jirno Abriil in qaanuunka dawliga ah ay tahay mid meel looga dhacay wuxuu waday leeyihiin daawooyin iyo qalab loogu talagalay in lagu dhaqo kaliyaha dadka xanuunsanaya iyo qalabka caafimaadka ah marka sheekadan marka waa sheeko lagu wareeray adduunkii waxa loo sheegaa Iiraan inuu go'doomiyo Trump maalin walba ku celcelinaa Iiraanna maraakiibteedii waaweyneed ee shidaalka lacagta ka soo galaysa way soconayaan wixii daawo iyo qalab iyo cunto iyo wadana uu celinaa marka sheekadan marka waxa leeyahay waa sheeko waa la wareeray waa sheeko adduunkii oo dhan ku wareersan waxa meesha ka socda la leeyahay waayay sheekada kale soo korortay intaynu kala maqnayn wararka xiisaha leh waxa kamid ah maantaydii hore waxaynu ka hadalnay barnaamijkii hore saakay in Trump kooxdiisu ay yiraahdeen Spain waxaan ka saareynaa gaashaanbuurta NATO dalalku way ku wada jiraan wadan walba hal saxiixo leey sababta uu wadan uga saari karo ma qodoba dhigay wadan midku ka xoog badan yahay gaashaanbuurta wuu ka saari karaa qodob ah ma ku qoran doodan dhacday mar warbaahintii oo dhan laga hadlaya saraakiishii militariga gaashaanbuurta NATO rakii ugu sareeyay waxay yiraahdeen gaashaanbuurta NATO sideedaba waxa la aasaasay 1949 okay waxay yiraahdeen qodob jira 13 qodobka 13aad ee xeerka gaashaanbuurta NATO
qodobkaas wuxuu dhigayaa dowladdii rabta iyada iskeed inay iskaga bixi karto qasab ma jiro dowlad kale kaa saaraysana maaha macnaha waa fahmi weysay gaashaanbuurta nato waa ka baxanaysaa ma idinku jiro qodobaa u ogolaanay laakiin khubaradu waxay leeyihiin meeshan qodob dowlad inay ka saari karto gaashaanbuurta nato maba ku jirteen dheen meeshan foodo way dheen maraykanka Trump iyo kooxdiisu gaashaanbuurtan inay burburiyaan ay rabaan marka dood kulula dhacday marka aad inta soo warbixin laga qoro sheekadaas waxa leeyahay telefishinka Carabiga wuxuu leeyahay ma awoodi karaa Trump inuu ka cayriyo dowlad nato ku jirta heshiiska Washington arita ma tilmaamaya macnaha heshiisyada nato ay leedahay aritaasi ma damaanad qaadaya haddaba rag khubaro ayaa waxa la sheegayaa inay markaa sheegeen in gaashaanbuurta nato wadan uusan awood u lahayn in wadan kale uu ka saaro gaashaanbuurta nato oo ay ku wada jiraan sharcina ma aha wax dastuur iyo xeer u qoran gaashaanbuurta nato oo loo cuskanayana ma jiraan waa handadaad Trump marka waxa waaye in la iska dhiciyo loo wax ku leeyahay asaga Iran hadda maxay tahay Iran meel ay taagtay wada hadalkaaga ma iimaanay leedahay hadda dagaal rabto soo soco hadda tabar isku hayso Hormuz Soomar waa kaas maraakiibtiisii dagaalka oo dhan meeshu isugu geeyay meesha wuxuu yiri waxa jooga kii Gerald Ford oo bisha soo socota ka soo tagaala lahaa ugu weyn waxa jooga Abraham Lincoln midkii la dhahay waxa jooga midkii hadda tagay USS Bush mid kale leeyahay waxa soo dhan meesha isugu geeyay hal mid oo kamida oo soo mari kara Hormuzna ma jiro marka ninka hadda iska waabin martii shantaad hadda isaga dhicinin ma ka leexanayo marka hadda Spain waa la handadaya waxa leeyahay gaashaanbuurta nato ka saaraya sababtoo ah powerkeyga u diiday Israa'iilna u daba dhigatay Spain waxay dalkii ugu horeeyay ee dhaha Falastiin aqoonsanayda iyada iyo Ireland iyo maartay marka arintaas taagan haddaba wararka soo kordhay waxa kamid ah oo aad warbaahintu hadda uga hadlayso Netanyahu oo markii ugu horeysay sheegay in uu ku dhacay cudurka kansarka kaasoo ah nooca loo yaqaano prostata wuxuuna sheegay in laga daweeyay oo daawooyin ay ku socdaan qaliinkii lagu sameeyay December 2024 uu qayb ka ahaa xanuunkaas marka wararkan oo faahfaahsan kulay barnaamijyada dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa waxa soo kale iyana soo kordhay Mareykanka oo la sheegay inay gobolka bariga dhexe isugu geeyeen awood aad u xoog badan oo ciidan ah diyaarado hub maraakiib dagaal iyo maraakiib kale intaba haddaba maxay damacsan yihiin saacadaha soo socda waa su'aal taagan iyaduna aad loo hadal hayaa haddaba qodobadaas ay ahaayeen wixii akhbaarada ee soo kordhay haddaba wixii kale oo soo kordha barnaamijka saddexaad ayaynu ku sii faahfaahin doonaa haddii Allah awood leeyahay uu ka raali noqdo barnaamijkaygii labaad maanta Jimcaha waa naga intaa balse waxaan naga xusuusa channelkeena qisooyinka nadaara laba dadka qisooyinka jecel iyaguna qiso cusub ayaanu halkaa u soo gelinay way ka heli doonaan la gareeyo oo share gareeyo barnaamijka haddaad cusub tahayna subscribe ha ka iloobin YouTube-ka Facebook-na follow gareey inta aan mar kale barnaamij kale ku kulmayno asxaabay nabadgelyo